أنا حالنا صودا حلنا صودا لو صادتك كور رسين بسم الله الرحمن الرحيم ورتمر ورسيلها ما هاد اسكله أنا ما هاد علني لا جوشان ولا جسيين لما كان غواريته oo dalkani dadkeenu ku dheelay si hortayba aan u sheegan nimanka odaasha hortay hadlay waxaan leenahay maantay marka aan ka hadlo beesha degta deegaankan waa dhulkoodii magaalada ugu horeysa cagta ka soo saareen inta kalena oo dhiman tahay xoreeyna waxay ka rabtaa intaan hadda socota iyo inta u soo socota waxaan u maleynaa meeshan muddo 15 sano ay haystaan cadawga al-shabaab waqtigoodi waa dhacay xamaraan ka soo baxnaa annaga beledweyne nimid oo heer hiiraan oo dagaal xoogan ku jira oo nimanka mar hore iskala dagaalamay wiilal la ku wadaan u nimid wayna soo dhaweeyeen haddana waa nala socdaan reer guraceel oo ayaguna mar hore ka sii horreeyay reer hiiraan oo shabaabka iska celiyay oo iska soo raacdiyay ayaguna garabkeena socdaan saddex bilood oo deeska meeshan ka han ku wada soconaa kamana hari doono nimankan insha Allah ilaa iyo meesha ugu dambaysa go'aamada aan soo qaadanay intay qof Soomaali dib ku hayaan inaan ka harnaan go'aansanay dhalinyarada naftooda soo hurtay oo soo aadan nimankan inay la dagaalamaan ayaguna aad u mahadsan yihiin niyadooduna waxaan maleynaa maanta in inta shalay ka fiican tahay iyo inta daraad birina waxaan rajaynayaa inay ka sii fiicnaato intaas dadka deegaanada degan dad gunnimada u nugul waay runtii marka laga hadlo ummadaha kale meel laga dagaalamaa jira meel la isaga celshaa jira meel la isku soo baxaa jira ayagii deegaankan iyo guryahan tirada badan iyo magaalada weynka badan leh waxaan maleynaa in yaroo koobana ku dhex jirtay intii ay tiri ka bax magaalada hub waa haystaa ma ka warqabnaa toban wiilo tiraawada anagu gudaheena naga bixiyay naga tag waa laga waay tan waa arnaa magaalooyinka daban oo arki doona hadii ay bal sida ay ugu yeelaan laakiin waxaan sheegaynaa anagu in aanan hadii ay dadnimo yeeshaan wax iska celshaan oo soo dhawi doona doqonimadii ay qabeen hadii si hayaan looma istaagi doono kuwa laga dul qaada hadii ay yiraahdo waxaan rajaynaynaa waqtigooda inuu iska dhamaado kuwan oo aysan dad damba sii dhibi doonin niyad xumada iyo dulnimada ay qaadanayaan oo ku jirta dadka deegaanada degan oo iska baxshaan deegaanada qaar waxa la arkay qaybo ay haystaan qaybana maarta laga cishaday laakiin dad ay dhamaay la wada haysto oo hal qof wax iska dhahaayeen jirin oo kiimada xataa inta ordo oo maartay xamar orda iyo meel kale iyo magaalooyinkaas kale rag xoreysta doqonimaas wax la qaada kara ma aha waxaan noo ballan iska celino gurihiina ku soo laabta cid in tiraahda gurihiina kuma laaban kartiin iska celi annaga ma aha ahaato laakiin gurihiina aad ka qaxdeen dad waayeela ilmihi wixii dhammaan in duurka loo bixiyo oo duurka ku yihiin waxa inta ka sharaf iyo qiimo badan inaad gurihiina ku noolaatiin deganaatiin cid in tiraahda ka bax iska celisin wadiyusnimo in adoo kale ana gurigaada ka bax ku yiraayay ilmahaada iyo duurka geey ayada wax dhabo ku heestaa aan jirin inaad ilmahaada duurka u wado oo gurigaada ka qaxdo dadka deegaanada waa dadkeeni waa dadka inaan xoreyno oo nimid meeshan anoo xoolan uma soo doona xilna uma soo doona labadaas dadku ku wararsan yihiin waxaan u nimid meeshan inaan ka xoreyno waqtigan haysta maadaama ummadda deriska ay iska xoreeyeen in kaashadaan in garabsadaan ka sugeynay kaashii garabsiga waa wali waa uga fadhina diyaar u lanahay anaga inaan garabkooda istaagno oo ka celino nimanka qawaariinta oo shaadinta ummadda dhibaatay marka waxaan leeyahay cid kasta oo Soomaali ah nimanka inaan iska bixino wax noo dhaamo ma arkayno aan isgarabsano aan iska wada celino nimankan waxaan rajaynaynaa meeshan hadda maanta kuleelka iyo oraxda ka jirta nimanka in niman shaadin iyo waxa cadeynaysa meelihii laga xoreeyay gobolkan Hiiraan markaan imaanayna xataa meelo aan dhulka aan soo marnay meelaha qaar ay u haystaan soo marnay dhulkan Hiiraan oo laga bixiyo markaan mid ka bacdi inta hor looga baxsan ilaahay roob ku dijiyay oo barwaaqo markaan nimid intii aanu nimin
وبرواق هدنا كبعي الربع كده ماشان جيرالك أو أنا روح بنا الربع اسم كدين وحنا رجينا ما دام اللي جنب حشي إن إلهي روب كانوا وأنا أركض إن شاء الله مش اللي جوا قبطان وما لقى عديه إلهي برواق وكرجع إن الشيادين تصعدين عدينا يسا مركب حالنا أنا ممكن أسكع لي الضغط اسكداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته